أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم. waxaynu ka warqabnaa in sii kululaanshaha cimilada dunidu ay sii kordhayso. waxaa inta badan warbaahinada ka aragnaa wadamada ugu quwadda weyn dunida oo mar walba ka doodaya qaabkii loo xakameyn lahaa sii kululaanshaha dunida, iyagoo isku dayaya inay dhimaan waxyaabaha keena isbeddelka cimilada sida qiiqa ay warshadaha waaweyni ku sii daayaan hawada. sidaas darteed, muuqaalkan waxaan idinkugu tusayaa meelaha ugu kulul dunida iyo meelaha ugu qabowba. waxaana mid kasta ka soo qaadan doonaa min 5 goobood. aan ku horeyno 5 goobood ee ugu kulul dunida. cilmi baaris ay sameeyeen khubaro ku xeel dheer isbeddelka cimilada ayaa 5 goobood u aqoonsaday in ay ka mid yihiin meelaha ugu kulul dunida. 1. Death Valley. dooxadan waxa ay ku taallaa gobolka California ee dalka Mareykanka. sanadkan aan ku jirno ee 2020 waxaa la xaqiijiyay in ay ka mid tahay meelaha ugu kulul dunida. heerkulka dooxadan waxa uu gaadhaa 54.4 digrii. lamadegaanka Kabeli waa lamadegaan ku yaala dalka Tunisia. waxa uu ka mid yahay meelaha ugu kulul dunida oo mar walba xisaabta lagu soo darsado. heerkulkiisa ugu sarreeya waxa uu gaadhaa 55 digrii. Matriba waxa ay ku taallaa aagga fog ee waqooyiga galbeed ee dalka Kuwait. waa meel heerkulkeedu gaadho 53.9 digrii. Turbat celceliska heerkulka oo ah maalin kasta ayaa gaadha 41 digrii. Casiisia waa caasimadii hore ee degmada Jafara ee dalka Liibiya. magaaladan ayaa markaalinta koowaad ka gashay meelaha ugu kulul dunida. xilligaasi heerkulkeedu waxa uu gaari jiray 58 digrii, balse maanta heerkulkeeda saxda ah waxa uu gaadhaa 48 digrii. aan u soo gudubno 5 meel ee ugu qabow dunida. bariga qaaradda barafka ah ee Antarctica. bariga qaaradan waxa uu qabowgeedu gaadhaa 94 darajo oo ka hooseeya heerka ay biyuhu ku barafoobaan. Vostok waa meel Ruushka ku taala, waxaana heerka qabowgeedu gaadhaa ilaa 89 darajo oo ka hooseeya heerka biyuhu ay ku barafoobaan. Amadesan waxa ay ku taallaa Scotland, waxaana heerka qabowgeedu gaadhaa 82 darajo oo ka hooseeya heerka biyuhu ay ku barafoobaan. Victor Argos waa meel iyadana ku taala Scotland, waxaana heerka qabowgeedu gaadhaa 81 darajo oo ka hooseeya heerka biyuhu ay ku barafoobaan. Ayomyakon waa goob barafeed oo Ruushka ku taala, waxaana heerka qabowgeedu gaadhaa 67 darajo oo ka hooseeya heerka biyuhu ay ku barafoobaan. sida aan wada ogsoonnahay, cimiladu waa mid mar walba isbedbedesho. waxaa dhici karta inay 2 maalin gudaheed isku beddelaan heerka ay hadda joogaan.